haddana iguna haysan waayahay dhanka doorashada marka la eego madaxweyne markii lagu doortay kadib waxaad meediyaha iyo shacabka reer Puntland aad ka hor sheegtay 2019 haddii hal qof hal cod doorasho ah ay Puntland u gudbi weyso in tacabkaagii uu qasaaray 5 bilood ayaa hadda ku harsan ma hadalkaaga hore ku gowracan tahay mise wax cusub jira waxa weeye fiiri aan qofka anagu waxa la niyad saalaxa iyo niyad wanaag in dalkani ay dimuqraasiyad ka dhacdo waa muhiim dimuqraasiyad in la helo sababtoo waxa qofka shacabkaahi codkiisu inuu xogeeyo weeye waa inaan qof kale isagu uu sanfiin u noqon qofku waa inuu waxa uu rabo isagu sheegto waa wanaag weeye dimuqraasiyadda iyo dadku inay codkooda dhiibtaan taa ayaa mar walba naga guuxaysay 2016 bishii February ayaan magacaabay guddiga doorashada intaas shaqay hayeen nasiib darro ma aanan helin taakuladaan uga baahnay beesha caalamka cid kastaan la xiriirnay ama iyo ha noqoto ama wadamada daneeya dimuqraasiyaddana jecel ha noqotee anaga geed gaaban iyo geed yar baa u fuulay nasiib darro ma aysan dhicin inaan ka helo taakuladaan u baahnay sababto waxa weeye doorashada dhexda waxaa loo baahan yahay civic education dadka in wax la baro oo la wacdiyo lala hadlo oo يعني loo sheego waxa dimuqraasiyadu tahay waxa loo baahan yahay dadka in la tiriyo census bay u baahan tahay waxa u baahan tahay registration of voters wax la yiraahdo oo dadka in la diiwaan geliyo qofka codeeyaha uu diiwaan gashan yahay waxa soo u baahan tahay shaqo waxa u baahan tahay dhaqaale waxa u baahan tahay tababar waxa badan u baahan tahay laakiin waqti kugu kooban oo 4 sano waxa weeye waxa ka hadlayna 2016 baan sameynaa ku iri oo hadda laga joogo muddo 2 sano ka badan ayaa laga joogaa anagu marka shaqadiina waa la nimid guddiga waa magacawnay hawsha waa bilaabanay ma garatay waa tii in badan laga hadlaayay in xisbiyadu isdiiwaan geliyaan waa tii laga hadlaayay in ururadu isdiiwaan geliyaan wax badan wacdiyaan u samaynay ma fahamtay gaabis dhanka bulshada ahna waa uu ka yimid dhanka taageerada beesha caalamkana waxbaa naga soo laabtay laakiin anagu inta wartay waa soo dhigay hadalhaynta ugu badan waxa kamid ah in beesha caalamku ay diyaar la ahayd markii aad xilkan la wareegtay adigu in ay kaagala shaqeyso doorashooyinka hal qof hal cod in Puntland ay ka dhacdo 2019 oo aad adigu ku guuleysato balse dhankaagu u gaabis ku keenay maxaa kama jiraan waxaas waa ku leeyahay cid kasta u tagay iyada u tagay Swedish u tagay Switzerland u tagay meel bagaraacay oo lahaa hal la taageero guddiga hal bilaabo dhaqaale loogu talagalay iyagoo waxay ka hadlayeen badanaa marka hadda waxay aad u mashquulsan yihiin national election wax la yiraahdo oo dalka dhan ka wada dhaca waxa badan marka focuska inay ka wareejiyeen doorashooyinka ka dhacaya gobolada ila Puntland kaliya ma ahan doorashada ka dhici doonta koonfur galbeed mid baa ka dhici doonta Jubbaland laakiin iyagoo waxa moodaa inay focuskooda iyo waqtigooda ay geliyeen dhaqaaladan u wareejiyeen waxa la yiraahdo national election ama doorashada qaranka wax la yiraahdo taas ayaa keenta isleeyahay culayska halka waa noogu yimaadeen qodobka waa isragnay qaabistan doorashooyinka halka xafiiska ugu yimaadeen oo kala hadla arinta iyada aan shaqo isku malaha waxa muhiim ah doorashada dhaqan ka dhacayo Puntland ka dhici kartaa ayada hal lagu mintido ayada hal laga hirgeliyo kabacdi Soomaaliya loo gudbo laakiin arintaas ma aysan suurtagelin magaalada aysan galin guddiga doorashooyinka hadda jira hawshooda xagee maraysaa wax fiican guddiga ayaa rabaa inaad tagtaan oo aad wareysataan shaqooyinka ay qabteen hawlahooda waxa ay yihiin soo shaqeynayaan guddiga shaqo fiican baa wada shaqeynayaan aad buu shaqeynayaan waa tahay taadan ka gudbo inkastoo doorashooyinka wali aan ku jiro xilka markii lagu magacaabay oo aad ku guuleysatay 2014 dhowr jeer oo isxigay waxaad ku celisay in aadan sharaxnayn waliba iyadoo waqti badan ay ku harsan tahay hadda oo muddo kooban ay ku harsan tahay maxaad ugu dhiiran laadahay in aad sheegtid in aadan sharaxnayn in badan baa jawaabta marka hore aan siinaya insha Allah waxa weeye doorashada aniga marka ay haboonaato waa isleeyahay way ku haboon tahay ayaan sheegaya inaan sharaxanahay insha Allah wala ogaan doontaan laakiin sugu waayinina laakiin madaxweyne 4 sano iyadoo ay ka harsan tahay ayaa ku dhiiratay inaan sharaxnayn marka macquul ma tahay inaad murashax tahay oo aad dib u dhiganayso سؤال كودي جوابتي إسلام كسينية وقت جاي سوق السنة إن شاء الله وقت مناسب كجواب دان شاء الله. وانتهى مرشحين تقار وحي ولا بدن أي كم موجين دور الشرع أو إليهن وحل غيابا إن حكومة دني أي أما وقت كرسته أما يتبدل كلا كنتو محل وقع عن كلام مرشحين. وما سنتر هذا خراء الشيء حدنا وقع لنا إياه ورتقف سو أود وله ودن كان دستور بوليه هاي قليال بوليه هاي شرع الدجين
waxaa la yihahdo maxkamado fulin qof isagu inta soo istaaga yidhaahdo waa ku darsanaya waktigaygi waa dheeraysanayaa nidaam maaha sharcina maa mana dhici karto waxaan is leeyahay doorashada qofka oranaya doorashada waktiga la qaban mayo doorashada miyaan gaarnay markii de la qaban waayo inta la qaban waayo waa la oran karaa qofkaas ku darsi rabaa laakiin war hadal ah waxbaa lagu darsanayaa waxay ila tahay de wax saxa maaha war saxana maaha cidda dee sheegaysaana de waa inaad sababaysaa sida loogu darsanayo wadankani shido iyo shaqaaqo iyo wax ka baxsan dastuurka qof la imaan karo qof samayn karana ma jiro marka waxaa leedaha ku darsi mali adeer aniga niyadeena kumana jirto mana dhacayso insha allah waayahay golayaasha deegaanka ee magaalooyinka boosaaso wax dhaliilo ah ama wax maandaaf oo idin dhexeeya ma jirto absolutely khayr waa nin dhalinyara waa nin firfircoon waxaa iga muuqda dynamism waxa la yidhaahdo waxaa iga muuqda fircoona iga muuqata niyad wanaag baa iga muuqata qofka de afkiisaan qaadayna anagu urkiisa ma qaadayno laakiin markaa taa eegno iyo shaqadiisa an wax dhaleel uma hayo waxaan isleeyahay waa ra-isul wasaare wanaagsan dhalinyaro ah hala siiyo waqtigiisa iyo timeka fursadna hala siiyo ku shaqeeyo madaxweyne mahadsan tahay gabagabadii ayaan ku jirnaa adigoo raalli ah oon kaaga mahad celinayno waqtigaaga qaaliga aadna siisay dad badan waxay aaminsan yihiin runtii inaad wax badan qabatay oo aad horumar ballaaran kusoo zaa'idisay puntland sidoo kale dad ayaa iyaguna waxay aaminsan yihiin dhanka xulashada mas-uuliyiinta sida wasiirada agaasimayaasha kuwa hay-adaha kale ee dawliga ah xulashadooda in ay mararka qaar hogaankaaga ku xumaadaan fiiri anagu buulka waxaa la yihahdaa dadka markaad wax dooranayso dadka puntland joogaan dooranaya dad samada ka imaanaya iyo dad meel kale laga keenaya ma jiro dadka aan isleenahay marka puntland jooga oo buulkaas anagu aan haysto dadka ama u aqoonta fiican ama isleeyahay uu khibrada wanaagsan inaan doortaan muhiima anagu dadka qabiilna kuma doorano saaxiibtinimana kuma doorto waxaan ku doorana waxaan isleeyahay qofku inuu shaqadaa qaban karo in badanna maala waxyaala aan adugu fikray waxaa kamid a dhalinyarada in fursad la siiyo xukuumaddeeda ka hor fursad ma jirin dhalinyaro la siiyo hadda waxaad aragtay inta agaasimayaal guud oo dhalinyaro magacayo kumid ah agaasimayaasha waxyu kulli dhalinyaro ah weeye dadka in dalka wax usoo bartay oo dhalinyarada ah in fursad la siiyo marka anugu ma garan karo dadka waxay ka hadlayaan sababta waxaan isleeyahay dhalinyaro aqoon leh firfircoon shaqo qaban kara baad dooratay ayaan islahay marka sidoo kale dumarka oo kale in fursad la siiyo dalka xaq bay kuleeyihiin marka waxaan isleeyahay anigu dadka puntland jooga anigu dad meel kale aan ka keenaya ma jirtee intii oona silid baan ka qaadana marka intaas hadiidii la dhaliilay waxay ila tahay waa war kale waayahay fasiraad kale ayay yeeshaan hadallada qaar oo aad markaad qurbaha joogtid aad tirahdid tusaale dastuurka ha lagu dhaarto oo kale waxaa kaloo ka mid ah waxaan ula jeedaa inaad dhowr jeer adoo dibadda jooga mar aad joogtay gaalkacyo golihii deegaanka inaad markii golaha deegaanka dhamaada kadib aad dibadda aaday dad badan oo qurba jooga inaad ka hortiri dastuurka in lagu dhaarto weeye oo dhaartan wax laga bedelo si kale ayaa hadalkaasi ugu dhacay talada shacabka kuma shaqeyno teenaan ku shaqeynaa oo kale iyadana qayb ayay ahayd iyo hadallo kale oo badan maxaa kala weeciya marka madaxweyne sidaad hadalka u waday iyo fahamka dadweynaha waxaa weeye su-aal waxay tiraa adeer wuxuu sheeg sixirka daran markaan leeyahay dastuurka lagu dhaarto annaga dastuurka ku dhaqanaa dastuurka waxay u samaysatay inay ku dhaqanto qof markuu xil qabanayo dhaarta lagu dhaarto puntland dastuur bay leedahay ciddii marka si kale u fasiraysa iyada jirtaa taasu taa weeye middan ku saabsan kale oo aad lahayd dadka shacabka fiiri waxaan ka hadlaynaa dadka shacabka ma dadka shacabka ra'yiga shacabku waa muhiim waa la tixgelinaya laakiin fadhi kudirirmadeedu ku shaqaynaysaa anagu waxaan ka hadlaynaa waa warka fadhi kudirirka anagu mana dhegeysano kumana shaqeyno laakiin ra'yiga dadweynaha dadku dee ay inoo imaanayaan xafiiskaygu waa u furan yahay maalmo gaara dadweynuhu ay leeyihiin iyo imaan karaan oo qofkii ra'yi wada iyo imaanaya telefonkii waxaa malanaya puntland cidaan haysanin ma jirto telefonka madaxweynaha wixii rabaan furtaha igu soo gudbin karaan marka platforms dadku ay kusoo gudbin karaan ra'yigooda oo badan baa jira lakin waxaan ka hadlayna waxay ahayd
warka moogtahay dowladdu mar walba inta tira waxaan ka shaqal qaadanaynaa fadhi ku dirarka dhib baa imaanayso de sax maaha laakiin dadka ra'yigoodu annaga muhiim banoo yahay waana ku shaqeyna waan tixgelinayna ugu dambeyn mudan madaxweyne anoo mar kale kaaga mahad celinaya waqtigaaga qaaliga aad siisay professor ayaa tahay muddaad soo shaqaysay hadda 4 sano iyo 8 bilood ayaad xilka haysaa 5 bilood ay ku dhiman nabad bay kugu dhamaan doontaa sidaan filayo maxaad Puntland ka baratay waxaan ka bartay dad shacab ah oo la xukumo oo Soomaaliya ka wanaagsan jirin waa dad wanaagsan waa dad nabadeed waa dad xasarad yar waa dad Soomaalnimadu ku weyn tahay runtii oo sida ay ugu weyn tahay aad moodo marka qaarkood in loogu abaalgudin oo yani wax kasta oo wanaaga oo Puntland ay sameeyso waxa moodo marka qaarkood in si khaldan meelaha qaarkood looga tarjumo waxaa sida dadkan wadad niyad wanaagsan waxay ku faa'iideen ku socdeen ku wanaagsan yihiin ku qurux badan yihiinna waxa weeye niyad wanaaga ay qabaan Soomaalnimada ay qabaan marka waxaan isleeyahay anigu waa ku baahsan dadka reer Puntland doorashada ay doorteen fursadda ay siiyeen inuu adeego boqolkiiba boqol bay ku baahsan yihiin waa chance wanaagsan anuguna wixii aan asleeyahay waxaad ku shaqaysay niyad wanaag waxaad ku shaqaysay lilaahinimo dadaal ma aana yaraysan inaan wax qabto insha allahu marka intaas un baan ka bartay yani wanaagooda baa runtii oo baan asleeyahay ayaa iisoo kordhay wanaag badan oo dadka badan ay leeyihiin aad iyo aad ayaa madaxweyne waraysigaaga qiimaha leh oo aadna siisay iyo waqtigaaga qaaliga guud ahaanna daawadeen intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa waraysigii gaarka ahaa oo aan la yeelinaynay madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas anigoo Ibrahim Wadani ayaa waraysanayay tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo halkani waa RTN magaalooyinka Boosaaso iyo Garowe magaalooyin waaweyn ah ilaa iyo hadda waxaa jira in dardar aysan ku jirin shaqadoodii waxyaabaha dib u dhiga maxay yihiin wax kale dib u dhiga ma jiro way dhacay waa la soo dooranayaa sababtoo dadkii horumarkiisa iyo mashaariicdiisa ayaa ku xiran in ay dhacaan doorashooyinka golaha deegaanku sababtu waxa weeye laakiin waxaan rabaa in la helo dad istaahila golo deegaan mararka qaarkood ma dhacdo dad bunquuno ah oo aan waxba taraynin oo shiddo ka shaqeeya iyo mooshin iyo hebel baa saana iyo hebel baa saana ayaa booda mararka qaarkood in la soo xulo anaga waxaan rabnaa magaalooyinkani waa muhiim golaha deegaankuna waa muhiim horumar maamulku u yahay dimuqraasiyaddu u yahay rabitaanka shacabka u yahay horumarka dalka iyo degmooyinka iyo muhiim u yahay waxaan rabaa in la soo doorto haddana dhulka u sheegaya bulshooyinka Puntland meel kastay joogaan maaha Garowe Boosaaso kaliya Gaalkacyo meel walba waxaan rabnaa in la doorto dad istaahila in ay ku aaminaan maamulkooda ammaankooda shaqadooda marka taas ayaan rabaa in la helo mooyaane wax dib u dhig la yiraahdo ma jiraan waa muhiim waxa weeye in la helo golo deegaan oo sax dhanka musuqmaasuqa xukuumaddaada wax badan ayay ka warbixisay oo barnaamijyo badan ayaa jiray oo la dagaalanka musuqmaasuqa ah oo aad qabateen oo adiguba inta badan aad ka hadashay laakiin siyaasiyiin badan ayaa jira oo runtii kugu eedeeyay xukuumaddaada inay ahayd xukuumaddii ugu musuqmaasuqa badnayd ee Puntland soo marta waxaana ka mid ah Cali Xaaji Warsame oo horey u ahaa wasiirkii waxbarashada ee xukuumaddaada arrintaasi maxaa ka leedahay dadka waxaa markuu yiraahdo waa musuqmaasuq waa musuqmaasuq badan tahay oo yar tahay horta inuu cadeymaha yaa reer proof cali ma weydiiseen waxa uu hayo cadeymaha uu leeyahay saas wax loo musuqmaasuqay waxa weeye wataan ka hadlayo oo qofka mucaaradka ah oo haddana wasiir hore oo fashilmay ah oo xukuumadda wasiir buu ahaa 2 sano haddii musuqmaasuq jiro muxuu u sheegi waayay markuu wasiirka ahaa oran waayay ama sida casili waayay oran waayay anigu meesha musuqmaasuq baa ka jira si wada ka shaqada waa isaga tagaya laakiin markii shaqada laga eriyo shaqadiisu gudan waayo inuu dib banaanka ka hadlo oo kana aan yiraahdo aad wax badan ma suubinayso waxaasna wax la qaadan kara ma war saxana ma qayb waxa ka ah hadalkiisa in uu kaalin ka soo qaatay inaad madaxweyne noqoto asaga ku taageeray arrinta ka war qofka horta haddii cid abaal leedahay anaa abaal kule Cali Xaaji anaa wasiirka dhigay isagu qofka
qofka ninka la yiraahdo odayaha oo baarlamaanka jooga oo isagoo gacanta ku haysta maahan qofku hadduu isagu meesha ka baxo oo doorasho waayo cod waayo qofku codkiisa meeshu doon la aadaya caleena isagoo inta u calaamiyay Moran Cabdullaah la doorto marka soo hadii isugu doorto waan sheega laga rabaa laakiin waxaan sheegi karaa isagoo carigiis iska taagan nin shaqo ah inaan anigu wasiir ka dhigo magacaabay marka haddii cid abaal ku leeyahay cali abaal ku leeyahay laakiin abaal laba way laakiin madaxweyne dad badan waxay aaminsan yihiin cali shaqadiisa inuu inta badan ka soo baxay dhinaca waxbarashada maxay tahay marka khilaafka gaarka ah ee idin dhaxeeya waxba kama jiraan cali shaqo ka soo baxayna ma jiro duu shaqo hayo waan deyn lahayn wasiiro ilaa hadda 5 sano wasiir ah jira nin shaqadiisa wata oo shaqadiisa si fiican u wata aniga maxaa dan oo gaar ah cali iga galay kuwa kale oo Puntland oo ila siman baa joogay shaqadoodana waa ay wateen wayna shaqeynayeen يعني وين قلتين واجب كود سيدنا وشغلين وزير ويهين مركا على شغلين سكون فشل ما واحد قارف أنا قبل سنة لقد حي من ما يسجلين هو قال كيوهان صاحبك وحش ده أنا قد حي ما يسجل ويا هي عسوك على كنا واشقه حنكون كلنا واشق واضح maxaad noogu sheegi kartaa madaxweyne in mashruucii JPLG-ga ahaa ee Puntland mashaariicda ugu horumarsan ee ka socday ahaa uu u baaqday howlo la xiriira musuqmaasuq ma jirto xasaabka ma jiraan JPLG waa shaqeynaysa madaxweynaha ku-xigeenka ayaa ka ah champion office-ka detailka isaga ku siinaya laakiin aan waxaan ogahay inay socoto hawshiisii meel fiican marayso dabcan JPLG muddo soo socday waqti dheer buu soo socday waxaan moodaa marka mashaariicdu waqti dheer soo socdaan wax badan dalka ay ka qabteen dowlad kale way abuurmeen xawaayaha dhaqaalaha mararka qaar ka mid ah in meel kale loo wareejiyo oo sababtoo waxa weeye Puntland xalay waqti badan bay hawsha ka faa'iideysatay meel cusub hal la aado laakiin mashruuca si fiican buu socdaa waxa uu maleeyahay hadda bilcoms bil kor bay ahayd marka lagu qabanayay shirka lagu qabtay marka cid oranaysa waa musaasuqa iyo waa xagee warka laga keenay inuu lama socdo ويدين كرتا مركز مدحنا كان كا champion office joogo oo isaga detail ku siinay waaya arrimaha federaalka hadii aan u gudubno sidoo u aragtaa hab siyaasadeedka ama habka ay u shaqeyso dawladda federaalka ee Soomaaliya dhinaca dibadda iyo gudahaba dawladda federaalka wanaag badan oo ay leedahay dawladna way yeelan kartaa laakiin hadda waxaan isleeyahay xiriirka waxaan ka warrami karaa oo siyaasadeeda dibadda iyada u madax banaan oo shaqadeeda laakiin anagu xiriir fiican ma naga dhaxeeya wada shaqeyn buuxda ayaanu la leenahay wixii Soomaaliya ku saabsan kala shaqeynteeda hadda midna shir waxaan ka nagay shirkii Brussels oo Soomaaliya laga hadlayay waxa anaga dowlad ahaan uga aadan midna uga aadan Soomaaliya jihada ay aadayso yani inay ka baxdo dhibta ay ku jirto in dalka la horumariyo in dowladnimada qarnada dib loola soo laabto anagu yani waxaan ku leenahay doorkaasna si fiican oo shariif ayaan u ciyaaraynaa anagoo Soomaali ah anagoo oo mid ah anagoo oo ujeedadii mid tahay meel la wada jeedna inaanu markaa la xisaabtano la hadallo beesha caalamka laakiin shaqada day to day oo joogtada ah oo Soomaaliya iyo arrimaha dawladda ku saabsan dawladda federaalka la weydiinaya ayaa u xilsaaran inta badan khilaaf soo noqnoqda ayaa wuxuu u dhaxeeyaa qaar ka mid ah wasaaradaha xukuumadda aad adigu hogaamisid iyo wasaaradaha kale dhigooda ama ay hoos yimaadaan dawladda federaalka ee Soomaaliya khilaafaadkaasi maxay la xiriiraan ma dastuurkan lagu dhaqmin ma cilado kale ayaa jira inta badan waxa maqlaysaa wasaarad Puntland ka tirsan oo dhahaysa wasaaradda hebel xiriirkan u jarnay waa sax horta marka qaarkood waxa la soo afgaran kari waayay waxa weeye waa shaqada Puntland cidna magan ugama aha wixii ayada danteeda wasaaraduhuna waxa ay u xil saaran yihiin in ay difaacaan danta interestka dadka reer Puntland iyadoo aan ku xadgudbaynin wixii kale oo shaqaha nagala dhaxeeyay dowladda federaalka case waxa for example waxa waxaan u gaarnay heshiis kalluumaysiga oo dhexmaray dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha federaalka oo ahaa in lagu heshiiyo see loo kalluumaysanaya badan see loo kalluumaysanaya yaa u leh xaq inay kalluumaystaan yaa license-ka u leh inay shati gooyaan waxay ahayd 40 nautical mile wax la yiraahdo wixii ka hooseeya in dowladda xubnaha ka dowladda federaalka sida Puntland oo kale xaq u leedahay wixii ka shaqeeyana dowladda federaalka ay goonayso nin baa jooga wasiirka ah wasaaradda kalluumaysiga oo bixinada hordhi badan hawshaas waa ku horiyay heshiiska la gaaray lagu heshiiyay oo ahaa
khayraadka qaybsiga khayraadka marka hadduu ku xadgudbo uu fulin waayo wixii lagu heshiiyey dee dowladda anna waxaan odhanaynaa sax maaha mana yeelayno badda ugu badan loo kalluumaysto soomaaliyana waa puntland weeye xeebta ugu dheerna puntland baa iska leh 1440 kilomitr oo kamid 3,000 kilomitr puntland bay ka tirsan yihiin marka shaqada la isku qabanaya waa la iska hor imaanaya waajibaadka la isku qabsanaya xuquuqaha la isku qabsanaya responsibilityga la isku qabsanaya laakiin waa inuu jiraa wax kala hada oo kala nidaamiya yaa waxaan xaq u leh dowladda federaalka mise dowladda xubnaha kala dowladda federaalka waa in understanding iyo heshiis uu jiraa marka waxaa aslaya ugu muhiimsan waxaa weeye soomaalidu nidaamka federaalka ma taqaano waa la baranayaa inta la baranayo isla qabsi badan baa jiraya mogtahay soomaalidu dee waxaan nahay sidii family oo kale reer weeye micnaha soomaaliya familyguna always waxaa iska jira feud waxa la yidhaahdo dhexdiisa mogtahay oo uu ka dhex jiraya laakiin waxaa la rabaa mar walbaaba inaan danta guud focuska uusan ka dhumaynin laakiin shaqada waa la isku qabsanaya waxaa la isku qabsanaya intaan xiriirka la isku jarin oo media inta la hor yimaado aan loo soo gudbin soomaha in si hoose loo xaliyo oo aad idinku maadaama Puntland aad inta badan ku celcelisaan inaad hooyadii federaalka aad tihiin aad wax badan eegtaan waaya horta marar badan oo jaray xilaan ma jiro inta badan ama arag anagu kiisaskaasu aad bay u yar yihiin marmar banaanka usoo baxo khilaafku waa jira laakiin inta badanaaba dee waa laga heshiiyaa